magaalada Nairobi ee dalkani Kenya waxaa ka socda wada hadallo u dhaxeeya ONLF iyo dawladda Itoobiya waxaana ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani Kenya Farax Macalin. ONLF Soomaa sharaf aan bay soo qabteen way soo dagaalameen markii hore laakiin maanta way ka hoostay waa lagu dangaari markii lagu dangaaro markii 100 sano oo waqti ku afurwaan maqashay Soomaa markii hadda Itoobiya ay burburayso cadkoodana ay goosan lahaayeen iyagana ay sii dhiranaan lahaayeen waaye markii ay isdiibayaan oo masuuliyiinta oo ku adeeganayso kuwa kale u jajabiyo iyagana hadda waa meesha lagu hayo 100 sano wada dhul isku haysto miyay saddex bilood ka soo bixi kartaa Itoobiya inteeda ka hadhayna waxa la rabaa in lagu qabsado Soomaali waliba ogaadeen lagu qabsado Soomaaliya iyada hadda waa lagu gumaystay oo lagu jajabiyo oo hadda aan ku sheegay ninka sargaalka oo shalayna ay nimanka galmudug soo dhiibeen darraadna intuu asaga meesha tagay 200 iyo xogaan oo Soomaali lagu laayay isagoo ciidan Soomaaliya wato oo Itoobiya ka socdo marka horta annaga in laga waanto laga aqliyo mooyee ma midan hadda Itoobiya ay sii wado wareerta lagu leeyahay leeshinaysa dantooda oo bay ka wataan markii laga dangaarana sidii maanta ay sameeyeen xornayaan dastuurku soo fariista maadana la oran wala baradii خيراتك بقى لو دليهي شدالك بقى ودنكوda ka buuxa gaaskii baa ka buuxa dahabkii baa ka buuxa macdantii kale uranium kalamadka baa ka buuxa taa kale haday helaan waxa ka dhaadacsan hata qoomiyadahan farada badan oo 120 milyan inay iskaga maslixi karaan iskaga xalin karaan iyaga dad uma baahan xabashi Soomaali lama baahno dalka uma loo baahan yahay ku dagaalamay waa dalka dadkana in lagu shaqeysto camiil ay ka dhigtaan hadana camiilnimadii way ka gudbeen maxaa waxay xukumaan Puntland bay xukumaan oo Somaliland bay xukumaan oo waxay xukumaan galmudug bay xukumaan oo Jubbaland bay xukumaan oo camiilka ugu dambeeyay asana hadda iyaga oo maxay ahayd ay ku shaqeystaan waxa la waxay doonaan way ka gaari karaan ninka halka meesha Axmed Wali ay ku shaqeeyaan ninka ma shaqeey ninka wadaadka shaqeeya